madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay jawaabta dawladda waddanka Sacuudigu ay ka bixisay dilkii wariye Jamal Khashoggi in ay ahayd qarintii abid ugu xumeyd oo la qariyo fal dil ah oo ka dhacay adduunka wuxuuna ku cagajugleeyay in cid kasta oo falka waxashnimada ah ee sida xun loo soo maleegay ka dambeysay ay cawaaqib xun la kulmi doonto waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu isna dhinaciisa sheegay in Mareykanku waajibkooda ay marsiin doonaan ciddii ka dambeysay dilkii wariye Jamal isla markaana fiisaha dalku galka lagala laabanayo 22 qof ee la shaaciyay baa la yiri in looga shakisan yahay inay falkan geysteen waddanka Mareykanku waxa uu beesha caalamka kala kulmaya cadaadis xoogan iyada oo loogu baaqayo Mareykanku inuu dabciyo xiriirka uu leeyahay boqortooyada waddanka Saudi Arabia boqortooyada waddanka Saudi Arabia ayaa waxay marar badan dilka Khashoggi iyo waxa ku dhacayba ay ka soo saareen warbixino iska hor imanaya kadib toddobaadyo ay ku andacoonayeen inuu nool yahay Khashoggi balse waxay ugu dambeyntii boqortooyadu qiratay in wariye Jamal Khashoggi oo 59 jir ahaa inuu ku dhintay howlgal naxariis darro ah xilli uu booqanayo qunsuliyadda waddanka Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Washington ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu ku jiro xaalad muruga oo ku saabsan wariyihii la dilay Jamal Mareykanku uma dul qaadan doono ayuu yiri dilka arxan darrada ah ee loo geystay wariye Jamal Khashoggi isla markaana la qariyo lagana aamuso madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu maalintii shalay ka sheegay baarlamaanka waddankaasi in dilka saxafigaas la sii qorsheeyay oo aysan ahayn arrin si kam ah ku dhacay waxana uu dalbaday in dadkii ka dambeeyay dilkiisa lagu soo wareejiyo oo loo soo gacan geliyo si loola tigsado maxkamad ku taalo waddanka Turkiga wadamada adduunka ugu hodansan ee xagga dhanka warshadaha ka hor u maray ayaa iyagana dhankooda ka dalbaday dawladda Sacuudigu inay si buuxda u sheegaan sidii saxafigaasi Jamal Khashoggi loogu dhex dilay qunsuliyaddaas oo ay boqortooyadu ku leedahay magaaladaasi Istanbul tallaabo kamid ah culays xoog leh oo beesha caalamka ka imanaya ayaa waxa haddana jira hadal ay soo saareen dalalka la isku yiraahdo G7 waxa ay Sacuudiga weydiisteen inuu sharaxaad ka bixiyo geerida Khashoggi taasoo keentay su'aalo badan oo aan weli jawaab loo haynin sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sirdoonka waddanka Turkiga iyo Sacuudiga ayaa waxa ay qortay in xilligii Jamal Khashoggi aan la dilin ka hor waraysi laga qaaday ayuu ku sheegay baa la yiri in Saud al-Khahtani waa la taliyihii Sacuudiga ee xilka laga xayuubiyay inuu si cadhale u yiri war ninka madaxiisa ii keena oo uu ula jeedo madaxa wariyihii la dilay ee Jamal Khashoggi warku waxa uu intaasi ku darayaa in madaxweyne Erdogan waa madaxweynaha waddanka Turkiga ah inuu hayo nuqul kamid ah codadka ay khadka Skype-ka isku dhaafsadeen boqortooyada Sacuudiga iyo xubnihii dilka geystay balse waxa uu diiday inuu codadkaasi uu hayo inuu Mareykanka u gacan geliyo Saeed Ahmed Tamreise wararka telefishinka caalamiga ah ee Star Burco